سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. ولله شرفت يا احترامك بدن ولله فرحة يا ندين رجينا إن يدين كسعته وأذكسوا ما يسمى بشبركة سنة رمضان. ماذا حنونك أما تشرد الله يقان هيريجك سيابا بدن أيداس بكل فلوب جرين كران أما يكو قبسان كرتا أما يكو سواب كراين وماذا حنون وماذا حنونك xilliga lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan dad badan ayaa waxa ay dareemaan madax xanuun xilliga ay sooman yihiin marka ay furaan dadkaasi madax xanuunku waa ka baabaa waxa u badan dadka shaahaadka u caba iyo dadka iyaguna balwadaha kale leh ayaa u badan inay madax xanuunka ay u dareemaan marka ay furaan ee shaahi ama balwadii ay isticmaali jireen ay cabaana waxa isku arkayaan inuu ka baabaayo waxa kaloo jirta madax xanuunku wuxuu ku iman karaa psychologically iyo physiologically labadaba uu ku iman karaa psychologically uu ku iman karaa oo qofku hadii uu stress dareemayo ama anxiety uu dareemayo ama sadness uu dareemayo dawakhaad isku buuq warwar walbahaar iyo waxyaabo noocaas hadii uu dareemayana madax xanuunku uu iman karaa dhinaca kale madax xanuunku wuxuu ku iman karaa jirooyin ha noqdaan minor illness-ka waxa la yahay xanuunada yaryar iyo xanuunada waaweyn ee major illness-ka la yiraahdo iyagu mid ay doonaan ha ahaadaan uu ku iman karaa xanuunada waxa kamid ah hargabka typhoid fever-ka durayga xanuunka loo yaqaan typhoid-ka hadii qofku ku dhaco madax xanuun saayid ayuu isku arkaa sidoo kale qofku wuxuu madax xanuun isku arki karaa hadii xanuunada chronic-ga ee ay sababi karto bakteeriyada ama viruska ama fungasku kuwaana uu isku arki karaa jira kasta oo jirkiisa ku timaada madax xanuun way keeni kartaa haddaba madax xanuunka sidaynu tilmaamay qaar kamid ayaa waxay yihiin temporary qofka way ku dhacaan waxa kaloo jira dad kale oo iyagu madax xanuunka waxay iskugu arkaan si iska way iskala nool yihiinba ama si caadi ah markay soo daalaan bay madax xanuun dareemayaan markay yimaadaan bay madax xanuun dareemayaan xilliyada qaar dadka madax xanuunka isku arka waxa kamid ah dadka calooshu ay taagantay ama xanuunka la constipation-ka la nool ee qaba ee caloosha ay taagantahay ayaa madax xanuunka isku arka haddaba muuqaalkan insha Allah maanta waxaan ku soo bandhigaynaa waxyaabo home deliveries ama home remind deliveries ka la yiraahdo qofku isagoo guriga jooga waxyaabaha uu kula tacaali karo madax xanuunka aan inta badan bakteeriyadu sababin ama aan virusku sababin waa la tacaali karaa siyaabahan soo socda ayaana lagu xalliyaa waa siyaabahan soo socda 60 shay ayaa waxa lagu xalliyaa in madax xanuunka aanay bakteeriyadu kugu sababaynin oo haday bakteeriya sababto dawo u baahan yahay ama virusku dawo caadi ah buu u baahan yahay laakiin madax xanuunka kale iska soo noqda kuwan baa lagu xalliyaa marka koobaad toonta oo biyo lagu radsado oo biyaha la cabaa waa anti inflammation ama waa pain relievers oo waxa ay runtii qofka ka yareysaa xanuunka hadii aanad biyo ku radsan oo toonta sideeda aad u isticmaashana waxa ay ka yareynaysaa madax xanuunka toontu waa pest reliever baa la yiraahdaa waa shayada ugu fiican ee organiga ee naturalka ee qofka madax xanuunka iyo lafa xanuunka iyo xadda inflammationka iyo qofku marka uu pain iyo xanuun dareemayo ayay ka yareysaa waa anti bay ku tahay kuwaas ama way la dagaalantaa ama way ka soo horjeedaa laakiin sida ugu fiican ee aad ku xallin kartaa waxa weeyaan toonta inaad biyo ku radsato kadibna biyaha aad qaadato isticmaashaad cabto qodobka kale ee isaguna ku faa'iideynaya waxa weeyaan waa basbaaska gaar ahaan basbaaska noociisa cascas inaad soo qaadato oo isagana cuntada aad ku darsato basbaaska oo cuntada lagu daraa waxa uu ka qayb qaataa inuu madax xanuun hadii uu ku hayo inuu ka yareeyo dhammaantood kuwani waa pain relievers baa la yiraahdaa toonta iyo basbaaska labadan qusradood ee basbaaska iyo toonta dadka isticmaali kara waa dadka aan laabjeex lahayn gastriga lahayn nabaro dibnaha ku lahayn dadkaas ayaa waxay ku daweyn karaan madax xanuun calool istaag uu keenay ama madax xanuun kale oo daalku uu keenay ama madax xanuun kale oo dawakhaata iyo stresska waxa la yiraahdaa ay keeneen kuwaasi ku daweyn karaan laakiin hadaad gaas leedahay biyaha doontu qofka wax badan ma yeesho xataa hadii uu gaas leeyahay laakiin way iska dayn doonaan dadka iyagu gaas kale oo kuwani way ka qayb qaataan inay gaciyaan
acidity-ga ay badiyaan oo qofka acidkiisu caloosha gaar ahaan ay ku kacdo. qodobka saddexaad ee lagu xaliyo waxaa ka mid ah qofku inuu resting and relaxation qaato, qofku inuu yara seexdo, qofku inuu seexdo ama inuu nasto oo gurigiisa ku nasto ama inuu seexdo ayuu waxa uu kaga qayb qaadan karaa madax xanuunka inuu iskaga yareeyo. gaar ahaan bishan barakaysan Ramadaan marka lagu jiro, qofku haddii uu madax xanuun dareemo inta maalintii, waxa wanaagsan inuu yara nasto kadibna hurdo yar uu qaato indha casaysi ama indha guduuda maalintii uu yara galo, taas ayuu waxoogaa ku nafisayaa. waxa kale oo qofka u bannaan inuu qubaysto oo uu biyo ku qubaysto oo dhammaan jirkiisa uu wada maydho. haddii aanu arrintaa wada awoodin, inuu sinxi biyo ku shubto kadibna uu cagaha geliyo ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha ka yareynaya madax xanuunka. sidoo kale wuxuu soo qaadan karaa maro markaa cudbi ka samaysan ama maro markaa cotton ka samaysan, waxa uu isticmaalayaa inuu qooyo kadibna madaxa uu saarto ama madaxa uu ku yara xidho. xilliyada qaar haddii neerfayaasha madaxu ay aad u kacsan yihiin, waxoogaa maro ama suuf ayuu madaxa ku yara wareegsanayaa oo ku xidhan karaa. taasina waxay ka mid tahay all these things waxay ka mid yihiin waxyaabaha relieverska la yidhaahdo ama qofku ku raysan karo. waa raysasho. qofkii 100% xanuunku inaanu ka wada tegin baa la arkaa, laakiin madax xanuunku ku yimiba mar haddii uu yahay mid aan sii soconaynin oo markaa qofka la sii soconayn oo bacteria iyo virus iyo xanuuno waaweyn ku sababin, kuwan ayaa xal waa oo ku dawoobi karaa. dhinaca kale waxa uu samaynayaa caloosha inuu socodsiiyo. caloosha waad socodsiisaa waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qayb qaata madax xanuunka inaad la dagaalanto. qofka marka calooshu ay taagantahay cabir buu dareemayaa caloosha. naqaskii iyo qashinkii dabadda uga soo bixi lahaa ayaa waxay ku samaynayaan inay neerfisyada ay kiciyaan. wixii qofka calooshiisii ku jiray ayaa caburka ay keenayaan ayaa madaxa soo gaadhaya ama ka ahaa soo baxaya ama refractionka ka soo laabanaya caloosha iyo kabaca iyo kubaaca soo baxaya ka soo baxaya caloosha ayaa neerfisyada madaxa kicinaya. taana qofku saas ayaa waxa uu ku dareemayaa madax xanuun. taana inuu markaas uu caloosha socodsiiyo. dadka inta badan madax xanuunka la nooli waa dadka xanuunka la constipationka qaba, calool istaaga leh, calooshooda ay istaagto. qodobka dabcan ugu dambeeya waa exercise. haddii qofku awoodo inuu dhidido, best relieverska waxaa lagu soo qaataa exerciseka, jimicsiga, socodka iyo orodku waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofku uu kula tacaali karo in madax xanuunku uu ka dhamaado ama madax xanuunku sidaa uu ku daayo. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa muuqaalka iyo muhiimadda uu leeyahayba in haddii madax xanuunka aad leedahay intaad kula tacaasho. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.